aqoonsiga degmada Laascaanood ee bariga Sool iyo tallaabooyinka qariska xornimada ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maxay kaga falcelinayaan Puntland iyo Somaliland muxuu yahay qorshaha lagu soo afjarayo jabhadda uu firdhiyo hogaamiyaha uu yahay ee ka arrimisa degmadan micno noocee ayay yeelanayaan shirkii looga arrinsanayay mustaqbalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud sida gaarka ah u leexsaday aqoonsiga degmada Laascaanood ma noqon doonaa mid hana qaada oo ay wax kula qaybsato maamulada kale ee Soomaaliya warbixinteennan ayaynu ku faaqideynaa qodobadaasi kulan afduuban oo Xasan Sheekh Maxamuud uu dhexda u fadhiyay dhammaanbana ay dibad joog ka ahaayeen saamileydii siyaasadda ee Soomaaliya ayuu ahaa waxaana ka soo baxay qodobo dhowr ah kuwaasi oo dhammaantoodba ay xeeldheerayaasha u dhuun daloola siyaasadda Soomaaliya sheegeen in ay yihiin kuwa aan hana qaadayn oo qoraalka lagu baahiyay filla Soomaaliya aan dhinacna u dhaafsanayn laba caqabadood oo waaweyn ayaana hor yaala madashan wada tashiga ee Xasan Sheekh Maxamuud uu sidii uu rabay ka yeelay iyo qodobada ka soo baxay caqabada koowaad ayaa xeeldheerayaashu sheegeen inay tahay beesha caalamka oo aan aqbalaynin iyadoo saamileydii siyaasadda ay kala maqan tahay wax la isla ogol yahayna aan ilaa iyo haatan heshiis lagu gaadhin waxaana Soomaaliya haatan ay halis ugu jirtaa in deeqaha inta hadhayna laga joojiyo waana sababta uu Xasan Sheekh Maxamuud ka ordaayo isagoo oo doonaya inuu laba shinbirood dhagax ku wada dilo oo deeqihii beesha caalamkana helo kursigana ku sii muddo dheeraysto madaxda maamul goboleedyada ee kulankaasi ka soo muuqday ayaa ila wareedyadu waxa ay sheegayaan in aanay u madax bannaanayn doorkooda iyo doorashadooda balse dana siyaasadeed oo filla Soomaaliya kaga xidhan loogu hanjabay in aanay helaynin haddii aanay fulinin siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayo awood maroorsiga firdhiye ayaa ka soo dhex muuqday oo hogaamiye ama se gudoomiye magacyo dhowr ah ay u bixisay filla Soomaaliya sida oo kalena iyadoo ay filla Soomaaliya maamul u adeegsanaysay degmada bariga Somaliland ku taalla ee Laascaanood taasi oo 3 sanadood ee ugu dambeeyay ay ka arriminaysay jabhad gooni u goosado oo doonaysa inay xamar hoosto marxaladda koowaad ee marka maamul la aqoonsanayo Soomaaliya uu marayo ayaa inuu shuruudihii soo buuxiyay iyadoo oo loo eegayo 2 gobol iyo wixii ka badan in ay la yimaadaan bulshada doonaysa in ay xubin ka noqdaan maamulada tirada badan ee laga sameeyay waddanka Soomaaliya tallaabada labaad ee ay u gudbayaan waa in wasaaradda arrimaha gudaha oo arrimahaasi qaabilsan ay qorshahaasi la wareegto diyaariso sidaasina ugu gudbiso baarlamaanka iyadoo baarlamaanku ay ansixinayaan inuu noqdo xubin ka mid ah maamul goboleedyada tirada badan ee Soomaaliya aqoonsiga ayaabaan ahayn habkan uu Xasan Sheekh Maxamuud ugu danaysanayo gudoomiyaha jabhadda magaalada Laascaanood ee firdhiye taasi oo ay markaba si dhow ugu muuqanayso damacyo siyaasadeed inay ku jiraan meesha oo la kala fushanayo balse iyagu waxayba ku qanacsan yihiin qoraalada baraha bulshada lagu faafinayo ee inay degmo kaliya noqotay maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya hase yeeshee xaqiiqada ayaa sidaasi ka durugsan Somaliland ayaa ka aamustay tallaabooyinka ay qaadayso filla Soomaaliya iyadoo oo ku bedeshay qorshe daaha dabadiisa oo lagu soo afjarayo jabhadda magaalada Laascaanood dhinaca Puntland waxa ay ku tilmaantay tallaabo qariska xornimo ah oo aan meel la gaadhaynin qorshaha bahalnimada ah ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayo inuu ku afduubo doorashada Soomaaliya Puntland iyo Somaliland ayaa waxa isku afkarteen 3 tallaabo inay qaadaan kuwaasi oo ka dhan ah jabhadda Laascaanood ka arriminaysa tallaabada koowaad ayaa ah in isu socodka la isu furo oo ay yeeshaan xiriir toos ah oo derisnimo Puntland iyo Soomaaliya 2 in la kala furfuro jabhadda oo dhinac waliba uu adeegsado tallaabooyin lagu burburinayo maleeshiyaadka haatan halka gacanta ku haya oo Garowe iyo Hargeysaba aan midna ka haysan ogolaansho iyo qodobka saddexaad oo ah in siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka saameynta leh ee deegaankan oo haatan badbad meel ay qaarkood yihiin gacanta lagu dhigo kuwaasi oo go'aaminaya in la soo afjaro jabhadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool